Mister. waxaan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badneed ee maanta aad noo garab istaagtay go'aankana noogu raacday cadaaladda idin badbaadisay anna taa waan ku qanacsanahay maadaama waddadii wacnayd aad igu hagtana taa 1,000 jir baan kaaga mahadcelinayaa ujeedkayga iminka wuxuu yahay dilaaga dhabtaa sidaan ku heli lahaa madow ibligaad ugu horrayn samirka waa inaad badisaa anigana diyaar waxaan u ahay dilaaga aabbaha dilay inaan wada raadinno oo aan si wada jira gacanta ugu soo dhigno qaatilkaas lagama yaabo inaan adiga kaa soo horjeestay hadda kadib garabkaaga ayaan ahaan doonaa waajibaadka ku saaran si aad u gudatana hiiliyahooba diyaar ayaan annaga kuula nahay waad mahadsantaa mudane ertol maadaama maxkamaddu ay fasaxday wiilkayga gunduus waxaan diyaar u nahay inaan xaflad dhiganno xafladdaasna adiga aad nagala qayb gasho waa haddii adiga aad raalli ka tahay waana ku sugaynaa inaad adiga ka soo qayb gasho waan aqbal casuumaaddaada arthur khiyaano weyn ayaa ugu sameeyey markuu ugu yiri wiilkaygana ka ayaan kaxeenayaa sidoo kale wiilkiisana wuu badbaadsaday ibligadna asiga la safan tahay waxaa habbooneed markuu halkan joogo inaan ku dilno leys arthur wuuna khiyaani wuuna naga guulaystay laakiin hadda waxaan kaa rabaa dahabkan inaad qaadatid oo ciidan cusub noo qoratid si aan ugu aargudsanno jabka uu noo geystana aan ka gudno ku dhaqaaqa hawshaas intaasoo keliya maahan cid allaale ciddii idinka soo horjeedsato waa inaad u dhammaysaa aysan noolaanin suuqa basaar iga warramo suuqa basaar waa iska caadi ganacsadana ilaa iyo hadda way joogtaa wayna shaqaysanayaan sidooda ayaynu ugu shaqaysanaa wax ka hadlaysan habeeraatay ma jiraan sabab makiis u hanjaba soo idiinma dhihin aniga maxaad ugu sheegi waysaan familkiisa inaad dilaysaan waan u hanjabnay cabsina waa ku abuurnay ilaa iyo hadda waxba ma qabanayo ilaa iyo haddan hool oo qabta ma arkin wuxuu damacsan yahana ma aqaano hanjabaadda wuxuu rabaa in loo laba jibbaaro ninkaas haa waa run waxaa la gaaray xilligan la kulmi lahaa hadda kadib waa inaan awooddeenna kordhinaa dadaal fiicanna waa inaan samaynaa si aan u helno guusheenna iyo hadafka aan leenahay cabsi dambo ma jirto way dhammaatay ilaahow adigaa mahadloo dhibaatadii naga saaray wiilkayga gunduusna dadkoo dhan way arkaan inuusan wax dembii lahayn oo dembila'aan ayuu noqday ilaahay ayaa mahad iska leh dhibaatadeenna haysana naga dulqaaday asaga ayaana u mahadinaynaa munaafiqiinta shabaqay noo dhigeenna waa aan ka badbaadnay arrintaasna waxaa garab weyn nagu siiyey ibligat wayna ku mahadsan tahay maruu ibliga dembigaagii dembiga waalidantaada waa ilaahay dhaafo sidoo kale mudane ertuul adna ilaahay ha ku xafido waxaad garatay dhibaatada annaga iyo qabiilkeena in haysata waadna na ogeysiisay waadna na badbaadisay mudane ertuul wakhti xadirkan labadeenna hal cadow ayaynu leenahay xaaladdaa markaan ku sugnaa dad fara badan baana eedeeyey dad kalena waan ka been abuuray waxaasoo idinna waan idinka raalgaraynayaa gabadhayda wakhti aad u adag ayaa ku soo maray aadan kala garanayno qofka runta kuu sheegaya iyo ka beenta kuu sheegaayo laakiin ilaahaa mahad iska leh oo xaqa ku garansiiya haddii aadan xaqa aadan garan lahayn gabadhayda
qof aan dembi lahayn ayaad gacantaada ku dili lahayd adigaana dib dembi u geli lahaa hadda waxaa la taagan yahay wakhtigii shaacirkeenna uu noogu dhufan lahaa gabaygii uu markaasi noogu talagalay